ciidanka dabdamiska ee gobolka Togdheer ayaa ku guuleystay inay baqtiyaan dab ka kacay kaalin shidaal oo ku taala bartamaha magaalada Burco aroornimadii saaka. Dabkani ayaa sababay dhaawac nin waayeel ah halka ay ku neef qabatoobeen laba haween ahi. Haddaba waa kan taliyaha ciidanka dabdamiska ee gobolka Togdheer Cabdicasiis Maxamed Cabdilaahi oo faahfaahinaya khasaaraha dabkani. Waxaan ugu soo dhacday qayladhaan dab ah, dabkaas oo kaalin sagaalkii subaxnimo isla markiiba ciidanka damisku waanu ku baxnay waanu gaarnay koobta waanu daminay waxaanu sidoo kale ka soo sabato bixinay 3 ruux ama 3 qof oday waayeel oo ilaa 50 jir qiyaastii ah iyo laba dumar ah oo xagga dambe ku jira oo guriga kaalin iyo guri kala dambeeyay ahayd meesha marka guriga dambe ay ku jireen dadku guriga dambe ayaan ka soo saaray odayga iyo labada dumar ah oo dhaawacoodu aad iyo aad u sahlan yahay waxaanu soo gaarsiinay isbitaalka weyn ee magaalada Burco labada dumar xaaladooda iyagu aad bay u fiican tahay oo suffocation ba ku dhacay macnaha qiiqii bay ku cabureen odayguna dhaawiciisa dabku aad iyo aad u sahlan yahay saddex qofna waxaan keenay isbitaalka weyn ee magaalada Burco dadweynaha waxaanu sheegaynaa had iyo jeer marka ay dab arkaan ama howlaano kale dhacaan inay la soo xiriiraan nambarka ciidanka damiska oo ah 990 aan isku daynin iyagu baqtiyaan dabka dhaawaca dadka ku waxyeeloobay dabkan ka kacay kaalinta shidaal ayaa la gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Burco iyada oo uu ka hadlay agaasimaha madaxa shaqaalaha isbitaalka guud ee Burco. maanta ay taariikhdu tahay 15 bishii saddexaad waxa ciidanka dabdamiska ay noo keeneen 3 qof oo kaalin shidaal oo dab ka qarxay 3 qof waa laba dumar iyo oday nin waayeel ah marka waana ladeen dhaawacoodu dhaawac fudud weeye dumarku way cabur bay qiiqiiba xidhay naqaskeer xidhay imka hadda way fiican yihiin aad iyo aad bay wanaagsan yihiin ciidanta dabdamiska ayaa noo keenay waa fahmi kaysa xirsi bulsha TV Burco.